xisaabtan yar inaan xusuusino oo shacbigana naga sugayo annaka laakiin aan isku guwaabino loo baahan yahay madasha nala siiyey naloo igmaday waa 4 sano 4 sano labaa dhamaatay sanad baa dhamaadan leeyahay 2 kal fadhi ayaa soo gabagaboobay kal fadhigii koowaad saan ka warqabno wuxuu noogu idlaaday in aan dhisno hay-adihii dowladda ee lagama maarmaanka ay ka mid tahay madaxweynihii oo la doorto kolihii wasiiradoo la dhiso barnaamijkooda la eego ayuu kusoo dhammaaday badankiisa iyo arrimo yaryaroo siyaasa ahaa oo markaas samaysmay in la xalliyo u baahnaa oo la dhameeyey kii labaad hawshii oo sharci dejinta iyo matalaada shacabka waa bilowday hase yeeshee badankiisi waxaa qaatay dejinta qorshaha lagu shaqaynayo 3 sano soo socda haddii sidaa aan u xisaabtano marka sanad baa dhammaaday 3 sano baa hartay baa la yidhaahdaa laakiin barlamaaniyiin ahaan waxaynan u xisaabtanaa kal fadhiyo qorshaha haddii markuu ku hagaago sanadka koowaad oo labadaas kugu dhammaado waxaa lagu xisaabtamayo waxaa weeyaan 2 sano soo socota ma aha 3 sano waa 2018 oo hadda noo bilowday iyo 2019 oo xigi doona haddii la yiraahdo kuwaasoo isku darkooda uu noqonayo 4 kal fadhi 4 kal fadhi micnaheedu waxaa weeye 16 bilood 2 kal fadhi ee u dambeysay 2020 waxay galaysaa olole iyo doorasho iyo waxyaalaha ay galaysaa howlo badan sida uma qabsami doonaan shaqada la iska doonayo in la qabto waa 16 bilood ama yani 4 kal fadhi oo noo haysatan oo sanadkan iyo sanadka xiga marka saa daraadeed waa laga maarmaan inaan diiradda saarno inta ugu muhiimsan oo shaqooyinka loo baahan yahay oo gaarsiin kara shacbiga iyo dalkeena gaarsiin kara arrimihii aan u ballan qaadnay oo ay ka mid tahay doorashooyinkaas hase yeeshee doorashooyinka waxaan xasuustaa in 9 su-aalood loo gudbiyey guddiga madax bannaan ee doorashooyinka oo ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka 2020 la doonayo oo aynay soo gabagabowda ugu dambeyn November 2020 waayo bisha December waxaa iska leh maxkamadda sare in ay nadiifiso haddii ay dacwo jiraan iyo haddii kale 26 December 2020 baarlamaanka kala fadhigiisa waa inuu furmaa marka saa daraadeed isweydiinta aan isweydiinay waxaa aad baan ugu bogay jawaabaha ay soo bixiyeen guddiga madax bannaan ee doorashooyinka oo ay golaha shacbiga kaga jawaabeen oo aqal sarna ay keeneen markii dambe hadda xaliimiyey waxay dhahayso waa la qabanaa waa rabnaa in la qabto waa ballan qaaday waa ku dadaalinaa hal su-aal baa laakiin meesha taal haddii ay dhici weyso maxaa tala arrintaasi waa arrin su-aal culus siyaasi loo baahan yahay in aan maskaxshiil ku samayno oo aan ku talagalno annagoo ku dadaalayno xooggana saarayna in ay noqoto doorashadooyinka inay qabsoomaan ilaahay nabadda hanoo badiyay waana suurtagal haddii sidaad asaansaad ay ku socoto waa la suurtagelin karaa laakiin waa laga maarmaan isla markii in la isweydiiyo arrimahaasi hadday dhacaan anigu waxay ila tahay xoogga aanu saarno hor iyo horaan in dastuurkii federaalka soomaaliyeed ee dib u eegista lagu samaynayo in aan meel dhigno 2 sano gudahood taasi waxaa iga dardaaran arrimaha kale oo adkeysa diiradda la saari doono waxaa weeye federaaleyntaas iyo shuruucdii doorashooyinka oo aad u fara badan oo ayagana kala xulasha u baahan ayagana in xoogga la saaro oo la dejiyo yaan hadalka badinin arrinta keliya aan rabay caawina isku gogobayno waxaa weeye shaqada noo taalla waa badan tahay waxa shacbigu nagu sugaya aad bay martaa u sareeyaan waqtiga aan haysanana waa gaaban yahay saa daraadeed aan duubanno mar kale aan u howlgalno sidii aan arrimahan uga biyo keeni lahayn